kulanti waxana wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warkii telefishinka madaxa bannaan ee bulsha TV idinka imanaya stuudiyihiisa magaalada Hargeysa qodobada daawadayaal habeenkan caawa warka ku maqli doontaan waxaa kamid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa si baan u weeraray wasiirka madaxtooyada Somaliland kambaniga baskil uu fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta xarunta xanuunka dhimirka ee Al Rayyan ka fuliyay howlgal nadaafadeed wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Somaliland Abiib Diiriya Nuur ayaa maanta xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadii warka haatan isagiyo dhameystiran gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa si baan u weeraray wasiirka madaxtooyada Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta jareedo ku qabtay xarunta guud ee xisbiga mucaaridka ee u waxa uu jawaab kulul kaga bixiyay hadal ka soo yeelay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan kaasoo ku aadanay inuu gudoomiye Faysal Cali Waraabe yahay qiyaamista qaran waxaana uu gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u Faysal Cali Waraabe oo arintaasi ku tilmaamay aflagaada bareer aan waxba ka jirin gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan aanu arintaasi wax cadeyn ah u haysan laakiinse ay tahay ay uu wasiirku u bareeray waa sidoo hadalka u dhigay gudoomiye Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waxa uu sidoo kale shirkan jaraa'id ee maanta qabtay oo ku sheegay in wasiirka madaxtooyada Somaliland oo magaalada Dubai ku wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya isla mar ahaanta uu si qarsoodi ah xilligii dambe kula kulmay mas'uulkaasi ka socday dawladda Xamar gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxa weeye waa kalsoon waa dabeecad xun oo Somaliland ay ku leedahay anu hadiga issues baan ka hadlaa qofna aan waliga macay markaan mid maalinta ka ahaa magaranaysa laga wasiir ku xigan wali la confirm gareyn la saacay shaytii caayban laba cusub horta waxaan waa wax kala jaro waxa ka shaqeystay dawladda ka shaqeystay markaan markuu aniga jawaab waa laga ergay war ninkaas wax uu sheegay in waxa ka hadlay war waxa jira laba wadaad jirta laba gudaa jirta ma oran la gudiyaas ma jirta ma oran Faysal Cali Waraabe gaanu basaas jiray halka mu mareeyo hada waxa weeye waa kala jarxun laakiin waxaan ku sheegayaa qaladka waxa keenay anaga iyo ninka Raila Xirsi laba noo wada hadal karo min gudoomiyaha xisbi in laba jeer madaxweyne uu ordanaha ninna waxa statement ninka taladan loo dhiibay Injineer Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay haboonta in markasta oo wada hadal la galayo dawladda Soomaaliya ee xisbiyada qaranku ay muhiim tahay in ay ka ahaadaan sidaasina waxa uu ku sheegay mar uu ka jawaabayay su'aal ay saxaafaddu weydiisay isagoo ka hadlayna waxa uu yiri marka waxay ka saareen labadii magac ka saareen laptop wuxuu ku jiray ninka tirsan wafdiga Soomaaliya uu ka soo saaray وقضيه بقى الموقع هنا وما الحويناش كما غيين ونحاول صارتين waxay declaration lama saxo oo inta jiban afdal lama saxo كمان اروح aan ka hor galay in labada wasiir labada group kala hogaamay saxaan way ogolaadeen nimankii waxaan wallahi noo saxaan waa dokumentka lagu faa'iideyn loo yahay aan ku cadaadino waan ku cadaadino qaadan labada haru level ismay kaliya saxiyo qaar madaxweynaha saxa qaar wasaaradda ku saabsan saxiyo maxay joogaan lagu borin ma yahay halkan ama watiis ku haysana ayaa shirkii waxa la geeyay wasiir khaarjiye hadalkani gudoomiyaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli la filayo in maanta ay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ay gaaraan mas'uuliyiintii matalaya wadanka Soomaaliland ee hogaaminaya wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya halkaasina la filayo in lagu gudagali doono wajigii afraad ee wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya Cabdiraxmaan Ilmi Xirsi TV magaalada Hargeysa kambaniga baskil uu fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta xarunta xanuunka dhimirka ee Al Rayyan ka fuliyay howlgal nadaafadeed
مسؤولين كسعودة كبنية بيستيكيل أي وحى مانتا حرمت الضدك دمرك وحكا قبائل الريان كتر لمقالة أرقيس سوق غارسيين داوين لقبو فيني عيان كيريانا كل شحرمت الضدك دمرك وحكا قبائل الريان وبهرين وحى مناسبة داسيكها اللي منم محمد قالب وكميدة سراكيشة وقصر سرية دينا عسوقين تاي كبنية بيستيكيل وكوهد اللي سي أفكا كبنية بيستيكيل أياتي مانتي إن أي مانتا حرمت الضدك دمرك وحكا قبائل الريان soo gaarsiin dawooyinkaas ay kaga buufinayeen cayaanka ku dhashay goobtaasi iyagoo sheegay in dawadaas lagu buufinayo cayaankaas ay wax badan uga tari doonto dadka dhimirka wax ka qaba iyagoo ka xareysan xaruntaasi oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxay tiri dadkan gudihiisa ayaanu bilownay dadkan gudihiisa maadaama aanu bilownay waxa shirkadda hadaanta aanu bilownay abril taariikhkan isticmaalo wax weyn kimikal aan dadka waxyeelaynin oo in la buufiyo 5 saacadood qofka ka maqnaanayo waxaanu iminka Beskin hadaanu nahay shirkadda Beskin Transit shirkadda sidoo kale isna waxa munaasabadaasi ka hadlay Xaaji Xasan Xaaji Geel oo kamid ah odayaashii iyadoo xaafadda ay ku taala xarunta Al Rayyan isla markaana kamid ah dadka u dhunta daroolo xaruntaasi ee wax badan koog isagoona u mahadnaqay kabaniga Bestikeel daaweyntan lagu buufinayo cayaanka ay maanta soo gaarsiiyeen dadka dhimirka wax ka qaba ee xarunta Al Rayyan sidoo kale isna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta dadka dhimirka qaba ee Rayyan Aadan Cawil Xuseen isagoona u mahadceliyay mas'uuliyiinta ka socota kabaniga Bestikeel oo ku tilmaamay inay yihiin dhalinyaro firfircoon isla markaana tilmaamay in daaweynta lagu buufinayo xarunta dadka dhimirka qaba ay wax badan ka tari doonto cayaanka yaryar ee ku dhashay iyagu xarumahaasi gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri nadaafadda iyo daaweynta iyo daryeelka dadka buka inaanu shaqadaasi maaragtay waxaanu ku faraxsanahay inay shirkadaasi cusub ee cayayaanka dabargoyntu inay hawsha nagala qayb qaateen oo ay noo sahleen oo ay maaragtay dadkooda iyaguna inta ugu tabaruceen assalaamu calaykum Cabdiraxmaan Fantastic Bulsha TV Hargeysa wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Abiib Diiriye Nuur ayaa xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Abiib Timacad iyo wasiirka hore ee wasaaraddaasi Cabdirasaaq Cali Cismaan ayaa maanta lagu qabtay isla wasaaraddaasi iyadoo munaasabada xil wareejinta ay kula kala wareeg labada wasiir ay ka soo qayb waxgarad xuqaal salaadiin iyo shaqaalaha wasaaraddaasi marti sharaf kala badan horeyna waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha Abiib Axmed ayaa tilmaamay inuu aad ugu mahadnaqayo wasiirka hore ee wasaaradda warshadaha Cabdirasaaq Cali Cismaan sidii buu yiri muddadii uu xilka u hayay oo sidii sharafta lahayd ee ula shaqeeyay wasaaraddaasi sidoo kale isna waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan isagoona wasiirku u mahadnaqay shaqaalaha wasaaraddaasi oo ku tilmaamay intii uu xilka u hayay aan waxba ka harkayn isla markaana si aad u fiican ay ula shaqeeyeen isagoona wasiirku u mahadnaqay wasiirka cusub ee isagoo wasaaradda kala wareegaya isla markaana soo dhaweeyay wasiirka geesta kalena waxa isna munaasabadaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Abiib Diiriye Nuur Timacad oo ka waramay inuu aad ugu faraxsan yahay xilka wasiirnimada ee wasaaradda warshadaha ee dhawaan u soo magacaabay madaxweyne Axmed Siilaanyo isagoona sheegay inuu ka gudoomiyo magacaabista madaxweynuhu u soo magacaabay wasaaraddaasi sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Abiib Timacad ayaa u mahadceliyay wasiirka hore ee wasaaradda warshadaha Cabdirasaaq Cali Cismaan oo ku sheegay in wax badan uu ka qabtay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay isagoo wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland uu ballan qaaday shaqaalaha inuu wax badan ka qaban doono horumarinta wasaaraddan isla markaana uu gaarsiin doono halka ay wasaaradaha kale ay gaarsiisan yihiin shaqaalaha waan balyeeyaa runtii sida wanaagsan ugu hadlayay loo yani aanay waxay yani wax banaanay yani wax arinahay yani gaadihay ay waxaadiya baan ugu balyeeyaa runtii ay u sameeyeen tan ku balyeeyaa waan maalintii maanta kale inay la mid noqoto hadii ay yiraa waan la mid noqoto dadka gacmaha qabsan way runtii dadkeen ku soo wadiyay oo inaan isxaman oo inaan xaqxagin oo inaan maalintii maanta halkan dabada ka hadlada وأي مدن ظلوا ويدقاقي حوالي الرباط إلي مساعدها التيري إيه مانتا مدح لك عين بلوك مياه إن الله مدن ظلوا حوالي الرباط هديك حالي إيو مالك المانتا حاجة حالين إيو
sidoo kale shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa munaasabadaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyey wasiirka hore wasaaradda warshadaha Somaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan oo tilmaamay inuu ku mutaystay howlkarnimadii intii uu xilka hayay uu ka qabtay wasaaraddaasi gabadhiina waxa si wada jira munaasabadaasi xiriirka uu la kala wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Somaliland Abiib Diiriye Timacad iyo wasiirka hore wasaaraddaasi Cabdirasaaq Cali Cismaan Cabdiraxmaan Fantastic Bulsho TV Hargeysa ugaaska guud ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa maanta kormeer indha-indhayna ku soo maray xarumaha adeega bulshada ee magaalada Boorama sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray Maxamed Xasan Ismaaciil ugaaska beelaha dega gobolada Awdal Salal Gabiley ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Boorama isla markaana ka qayb galay xaflado iyo munaasabado kala duwan oo isaga lagu maamuusayo ayaa waxa uu maanta kormeer indha-indhayna ku soo maray meelaha lagu hayo adeega bulshada oo ay ka mid yihiin dowladda hoose ee degmada Boorama saldhigga dhexe shirkadda adeegyada bulshada ee Shaaba iyo goobooyin kale oo lagu hayo adeega bulshada isagoo maanta kormeerkan uu maanta sameeyay ugaasku ujeedadiisu sidii ay u shaqeeyaan xafiisyada haya adeega bulshada ee gobolka Awdal waxaan wasi mari doonaa iska ilaaliya musuqmaasuqa eexda iyo qabyaalada qarabakiilka waxyaabahaas waa waxyaabaha ee bulshada ay maaragtay in ay ka reeban tahay waxyaabahaas oo kale way ka reeban tahay in aad cadaalad ku dhaqdaan oo aydan cidna u exanin wax wanaagsan sida cadaalada aad maaragtay ku xukuntaan booliiska ugu horeeya haddaba markii uu ugaasku soo dhamaystay kormeerkiisa ayaa waxaa saxaafadda uga waramay kormeerka ugaasku sameeyey afhayeenka ugaaska Muuse Carab Dugsiye socdaalka iyo booqashada uu ugaasku ku marayay maanta degmada Boorama in adeegyada bulshada ay u qabtaan xafiisyada kala duwan ee adeega bulshada qabtaan si kastaba ahaatee kormeerkan uu maanta sameeyay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli la filayo inuu ugaasku u kicitimo dhinacaas iyo dalka Itoobiya isagoo la kulmi doona qaar kamid ah beelaha halkaasi dega ee isagu ugaasku u yahay Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare Bulsho TV magaalada Boorama dugsiga hoose dhexe Cumar bin Khadaab ee magaalada Boorama ayaa maanta qabsaday xaflad ay ku soo xirayeen sanad dugsiyeedkii 2012 iyo 2013 waa kan mar labaad Maxamed Xasan Ismaaciil oo warkaasi nooga soo diray magaalada Boorama dugsiga hoose dhexe Cumar bin Khadaab oo kamid ah dugsiyada cad ee ku yaala gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu maanta qabsaday xafladii xiritaanka sanad dugsiyeedka 2012 ilaa 2013 munaasabadan ballaaran ee la isku arkay ayaa waxa ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Boorama xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ganacsato waalidiinta ay ubadkooda ay dhigtaan dugsigaasi haddaba waxa xafladaasi ugu horeyntii ka hadlay maamulaha dugsiga Cumar bin Khadaab Abduhaab Cabdilaahi Aadan oo ku dheeraad marxaladii kala duwanaayay dugsigaasi soo maray haweeney ka sii dugsiga saddex Cumar bin Khadaab waxa markii ugu horeysay aan bilaabay sanadkii 1994 markaasna ku bilaabay aadiya fasalada ku aadiya inta ay haayeen ilaahay hadii marxalada kala duwan ay dugsiga soo maray waxa kaloo yagna halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagweyne mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Cabdiqaadir Aadan Nuur iyagoo mahad celin ballaaran u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Cumar bin Khadaab ee mar walba u taagan sidii ay arday faa'iido leh ay u soo saari lahaayeen ugu dambeyntii waxa halkaasi ka maayir ku-xigeenka degmada Boorama Maxamed Faarax Dheereste oo ku dheeraaday ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay waxaan hamaryo iyo bogaadinada ku soo sheegayaa iskuulkan maamulkiisa iyo macallimiintiisa muddada dheer u fikiraysay himilada ay lahaayeen ee ah inay soo saaraan arday tayo leh oo ka soo bilaabatay guryo ilaa iyo dugsi sare oo ay maanta gabagabo guushooda ku dhowdahay ayaan hamaryagaa u soo sheeginayaa waxaana leehay ku sii adkaysta hamiga iyo himilada dheer ee aad leedihiin
intaasi kadib waxaa la gudagalay shahaadooyin iyo abaalmarino loogu talagalay ciddii imtixaanadii dugsiga la qaaday ka galay kaalmaha hore imtixaanadaasi iyagoo ardayda la guddoonsiiyey abaalmarino ay ku farxeen iyaga iyo waalidiintii ubadkaasi dhalay si kastaba ahaatee dugsiga Cumar bin Khadaab ayaa ah dugsiyadii sanadihii u dambeeyey laga hadalhayay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isagoo dugsiga sanadkan dambe lagu soo kordhin doono secondary taasina ay tahay guul ay u soo hooyatay dugsiga Cumar bin Khadaab balse waxaa xusid mudan in dugsiga Cumar bin Khadaab uu sanadkii u dambeeyey imtixaanadii shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka galay kaalmahaasi hore Xamir Xasan Ismaaciil Sherbiyare Bulsha TV magaalada Boorama shir jaraa'id oo ay qabteen guddiga qaban qaabada qoryaale ee Borden Secondary School ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay Hotel City Place ee magaalada Burco sida uu faahfaahinta warkan inoogu soo diray wariyay ayaga nooga soo warrama magaalada Burco shir jaraa'id ay qabteen guddida qaban qaabada furitaanka dugsiga sare ee Qoryaale Borden Secondary School oo laga hirgeliyay deegaanka Qoryaale 70 kiiloomitir kaga beegan dhinaca bari magaalada Burco ayaa lagu qabtay Hotel City Place ee magaalada Burco shirkan jaraa'id ugu horeyntii waxa hadal dheer ka soo jeediyay Kaysa Jaamaco isagoo ka warbixiyay furitaanka dugsigani dugsigu sidaan hore u sheegay wuxuu ku yaalaa Qoryaale waa dugsi sare oo noqonaya hoy leh chief cuntale ka kooban kalaasyo saan ugu talagalay insha Allah billahi laba fasal ayuu ka koobnaan doonaa oo form 1 saan ugu talagalay hadii ay u dhacdo iskuulku saan ku tala jirno waxaan furi doonaa sanadkan sanad dugsiyeedkan ayaan furi doonaa saan ku tala jirno ama aan u qorsheynay iskuulka waxa codsanaya arday saan ku tala jirno iskuulku wuxuu noqonayaa iskuulada ugu mudan waxaasna halkaasi ka hadlay Sheekh Jaamac Ali Cabdulle oo kamid ahaa guddida qaban qaabada furitaanka dugsigan oo ka waramay taariikhdii iyo marxaladihii kala duwan ee uu soo maray dugsigani waxaan u sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato daboolida baahiyaha asaasiga ee dugsiga sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay Caaqil Cabdiraxmaan Axmed Cawad waxa la doonayaa iskuulkaas maadaama Borden yahay يعني إنه مركان نقضاء أبد يسكول أي كسر بحان أرضي يسكول للتران أقونهان ماديهان يو مركان تربيهان يسكول كمركا حلقة قبشة الأشياء يو حفلة ينتهي صولا إن شاء الله تعالى ولا شيء مركا ينتهي صولا من أقصى كين أحكام السلافين يو السلام عليكم ورحمة الله. دكسيغا بوردن كا دكمة قريالة waxa uu noqon doonaa sida insha Allah la sheegay marka qodob kaliya baan inta la sheegay kabilaha oo ah ardada la qaadanayo ardayda waana 8 arday labada fasal la sheegay fasalkii uu ka koobnaan doona 40 arday 8 ka arday la qaadanayo waxa laga qaadan doonaa insha Allah ardadii sanad dugsiyeedka ka qalin jabisay fasalada waxa isaguna halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Baasho oo kamid ah bahda tacliinta ee gobolka Togdheer isagoo soo dhaweeyay furitaanka dugsiga waxaan aad iyo aad runtii u soo dhaweynayaa iskuulkan dadkii ka qayb qaatay dadka horumarka jecel waxbarashada jecel jazaakumullahu khayran hantidiini iyo fikirkiini iyo maskaxdiini waxa geliseen meel wanaagsan ka noocan oo kala ah oo khayri ah oo dad badan iska kaashadeen inuu dacmi u baahan yahay in halka laga sii wado in aan la oran iskuulkii waa la dhisay waa la furay oo halka laga hadhine de hawshii ugu weynay waxaan rajaynayaa in hadeer ay bilaabmayso dugsiga Qoryaale Borden Secondary School ee la hirgeliyay ayaa noqon doona mid wax badan ka tari doona baahiyaha waxbarasho looga qabay deegaankaasi Cabdiqani Iimaan Bulsha TV Burco rabshadaha ka socda dalka Masar ayaa lagu dilay 3 ruux oo kamid ah taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalkaasi ugu yaraan 3 ruux oo kamid ah taageerayaasha madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa lagu dilay dalka Masar 10,000 oo ruux oo taageersan Maxamed Mursi ayaa dib u baxay dhigayo ay kaga soo horjeedaan talaabada ay militarigu xilka uga qaadeen madaxweyne Mursi talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo midowga Afrika uu joojiyay xubinimada Masar ee ururkaasi militariga Masar ayaa hore u sheegay inay ogol yihiin dib u baxyo nabad ku dhisan sidoo kale militarigu waxay codsadeen in la sameeyo dib u heshiisiin qaran iyagoo
sheegay in ay gudagelayaan sidii loo suurin gelin lahaa arrintaasi. Hore ayaa madaxweynaha ku-meel gaarka Cali Muusar ugu baaqay ururka Ikhwaanul Muslimiinka in ay ku soo biiraan dibudhiska dalka. Afhayeen u hadlay Ikhwaanul Muslimiin ayaa sheegay in aanay qayb ka noqon doonin xukun ay sheegeen in laga xoogay madaxweynihii sida sharciga ah loo soo doortay. Dadka reer Masar ayaa u muuqda in ay si weyn ugu kala qaybsan yihiin tallaabada militariga ay xukunka uga tuureen madaxweyne Maxamed Mursi. akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan habeenkan caawa idinka haynay. warka xigay intaan ku kulmi doono waa Hodan Maxamed iyo dhammaan asxaabtii gala qayb qaadatay tabinta warkooda idinkaga tagaysa. salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.